intii la doortay madaxweynaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu socdaalkiisii ugu horeeyay ku yimid magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kaas oo ka qayb galayay munaasabadda qalin jabinta dufcaddii 17aad ee ka baxaysay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorame. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigaasi xilka hayay muddo 8 bilood ah ayaa ka hadlay dhibaatada dooxa qorgaabeed ee isku xidha jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorame. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ballan qaadeen si dhaqso ah u bilaabi doono dhismahaasi waxaana uu halkaasi ka dhagax dhigay dhismaha bariishkan ee la dhisi doono. waxaan ka rajeynayaa cidda qaabilsan wasaaradda gaadiidka iyo jidadka gaar ahaan hay'adda wadooyinka inay bariish tayo leh muddo dhaqso ah ku dhisaan anaguna wuxuu ku qabsoomayo waa ka dadaalanaa haddii la yiraahdo shalayna qorsheeda waa wada lahayn ilaahay waxaan ka rajeynayaa boqol kiilo aado dad iyo dad waxtara macallin adigana waa midhahaagii ka injineerka ka banka jooga ka madaxweynaha waxna waa ardaadi midho ka badan ma jiro jazakallahu khayr aad iyo aad waa mas'uul geesta kale waxaa xusid mudan in maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Cismaan Sheekh Cabdi iyo maayarkii hore degmada Boorame ayaa waxay daboolka mar kale ka qaadeen in sida ugu dhaqsaha badan lagu dhisi doono bariishkani oo qandaraaskiisa lagu tartami doono aynu bilaabano wajigii koowaad oo shaqadii si rasmi ah u bilaabano wadika arkay mashiinkii oo baalihii tiirashii hadii la ku roon yahay maanta laga bilaabi doono qodaalkoogii halkan aanu ka bilaabano bidmillahi taala ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inaynu baalkaasi si fiican ugu guuleysano. runtii hawshani waa hawl aad noogu taagnayd wax ka qabashadeeduna ay naga miisaan badnayd way nagu badnaayeen dhagax la dhigaa laakiin kani uu ka dhabeeyay madaxweynuhu waa dhagaxii ugu horeeyay gobolka dhigay ahayd kuna ka dhabeeyay waan uga mahad celinaynaa. tallaabooyinkaasi rajagelinta iyo hirgelinteeda la isla waayay ayaa waxa hadaba arintaasi si adag uga hadlay xogayaha xisbiga mucaaridka u ciiday gobolkan Awdal Cabdikariin Xasan Miicaad oo xukuumadda ku dhaliilay isla markaana sheegay in xukuumaddu ku fashilantay dhismaha bariishkaasi ayaa waxa uu yidhi madaxweyne waxa timiday gobolka Awdal khaasatan jaamacadda Camuud qalin jabinteedii baa timiday waxa dhagax dhigtay jaamacadda Camuud in bariish aad adigu gacantaada oo degdeg loo bilaabayo kharashkiisana la hayo aad sheegtay madasha aad ka sheegtay oo dhagax dhigtay haduu noqonayo dhagaxii siiraayo waa markii labaad ay kugu celinay dhagaxii beenta ahaa ee xukuumadii siiraayo ee meel kasta la dhigayo dumarka hooyooyinka waa ku tiran jireen haduu noqonayo dhagaxa beenta ha laga waantoobaan leeyahay xukuumadda kulmiye iyo kulmiyihii hore kulmiye bedelay waxaan aaminsanahay inuu naf balahaynay waxaan aaminsanahay inaad madaxweyne arrinkaas beenta ah ee bariishka jaamacadda Camuud hoyga ay maanta ku baranayaan dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasta isaga kala timiday daafaha dunida ka kala yimiday inaad tiri maanta halka dadka markuu roobku da'o jaamacadda kala xidhmaysay iyo magaaladii waxaan dhagax dhigayaa anigoo madaxweynaha qaranka Soomaaliland in aan bariish u dhiso jaamacadda Camuud waxaan leeyahay adoo mucaaradadi ma jirtay adoo maxaafadaad timiday adoo xukuumadii haysta oo madaxweynihii qaranka timiday maanta hadii ilaahay ku joojay dhagaxii haduu noqday dhagax beena waxaan leeyahay mudane Muuse Biixi Cabdi arrinkaas yuna ka beentoomi muddo yar oo kooban baynu sugaynaa inaad ka soo jawaabto baaqa jaamacadda bariishkaad ugu dhisaysay waxay nagu soo fool leh dabaylo iyo roobab hadii jeer sheegayaan oo wasiiradii xitaa bararka qaarkood kala hadlayaan xalay waxaan arkay ninkii hay'adda haystay masiibooyinka haystay iyo wasiirkii oo isaguna shalay ka yiri wasiirkii beeraha oo ka yiri TV-da in maalinta xadda loo diyaar garoobo uu halkan kay kalena uu leeyahay waa waxaas wax kama jiraan war xukuumadda isbeenaynaysa waxaan ogeyn madaxtooyadu ka soo baxo warqad bilaa saxiixa warqad bilaa shaambada oo mid lagu magacaabay maantana waxay ku darsatay in wasiirada ay haystaan conflict khilaafka inta leeg qaranka Soomaaliland dibindaabiyinta ka daayaan leeyahay xisbiga kulmiye ee talada dalka haya. waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV magaalada Boorame.